صاحبي السوري هذا ما تروح بلاوينا حلقتي أفراد نميجيني برو إكسورسيستي حلقتنا وحلقة ونكسان حلقتنا وحكوا هالك دوتان هرمرك إيو إنها كبحنا عالمك برو إكسورسيستي waxaan tagaynaa caalam aad u horumarsan ama waxaan tagaynaa meesha lagu gado alaabta blue exorcistiyaasha dadka la dagaalama shayaadiinta waana meesha aad horeeynaa riin iyaga lagu magacaabo shiimay isku baran doonaan markaas ka bacdi yuki riin markii soo galaan tukaanka lagu magacaabo maara way iskhilaafayaan maxaa yeelay yuki wuxuu inuu tukaanka galo riinna mar inuu tukaanka galo oo ma rabo inuu barto waxyaalaha exorcistiyada isticmaalaan markaas ka bacdi riin wuxuu dareemayaa inuu tukaankan ama goobtan ay tahay goob aad qadiimi u ah isagoo bilaabay inuu meesha yimaado ama meesha u soo galo riinna markuu soo horseegay albaabka beerta wuxuu arkayaa gabadha yareed lagu magacaabay Shaymi waxaan u muuqataa wajigeeda ama jir ahaanteeda waji qariib ah markaasna riin wuxuu bilaabay inuu soo galo albaabka laakiin waxa ka dhalanaysa tamartaas xitaa gaartaysa heer uu albaabka jabo marka uu soo galan riin gabadhan ay aragto Shaymi way ka baqaysaa wajigiisa ama sida uu yahay waxaan isku dayaysaa inay ka cararto laakiin asagana wuxuu rabaa inuu iska riyo qof daacad ama qof caadi ah dhaqaaqaysa koowaad ayayna ka baqaysaa laakiin saaxiibayaal waxa aragnaa Shaymi inaysan ahayn qof socon kara ama qof u digi kara waayo waa qof lugaha dhaawac ka ah iyadoo markaana loo wareejinayo gudaha ama meesha lagu gado qalabyada exorcistiyada halkaasna waxaana lagu tusayaa Yuki iyo haweeneyda dhashay Shaymi Yuki-yana wuxuu rabaa inuu si xushmad leh ula hadlo isagoo doonaya inuu ogaado xaaladda Shaymi hooyaduna si daacad ah ay ugu jawaabaysaa iyadoo sheegaysa in Shaymi muddo dheer xanuunsanayd ee lugahana dhaawac ay ka tahay Rin iyo Shaymi waxaan aragnaa in aad saxab u noqdaan oo wada kaftamayaan markaas Shaymi gacanta u istaagaysa Rin marka waa gabadha in gacan loo taagay ama saxab in noqon rabaan aad buu la yaabayaa Shaymi magaciisa u sheegay isagana magaciisa u sheegaya wayna saaxiibayaan waxaana soo baxay Yuki iyo haweeneyda dhashay Shaymi halkaas oo arkay Rin inuu gabadha ay taqaano Yuki aad buu la yaabayaa markaas ka bacdi Yuki-yana maxaa ku taqaan hooyadiisa oo markii meesha ka bilaabanaya wuxuuna gabadha leeyahay waxaan rabaa in lagu hagaago miyo ogolaan ka dhaa wayna u ogolaanaysaa Yuki-yana markuu lagu gabadha eego isla markiiba wuxuu ogaanay inay waxaan asan ahayn xunun caadi ah balse ay tahay shaqooyin ay qabtay jiman wuxuuna gabadha weydiinayaa haddii ay beertan ku aragtay wax jin ah ama wax ayada dhibaateynaya markaas gabadha markaa ay u jawaabayso waxa leedahay waxaan ma arag ama sahoma oray uma arag markaasna Shaymi ayaa hooyada ku qeylinaysa laakiin qeyladoodu ma aha kaliya qeylo ama canaan waa naxariis ama jacayl ay gabadheedu u qabto Shaymina bartii ay fadhida ay ku soo xasaa intaas ka bacdi waxaan la tusayaa Shaymi inay xasuus gashay iyadoo xasuusanaysa ayeeyada iyo waayaheed hore markaas oo Shaymi la geeyay xaafadeeda ama gurigeedii ay seexanaysay Rin iyo Yuki iyo haweeneydiina way iskaga soo tagayaan halkan waxa ka ogaanay in muddo badan ama qarniyaal badan jinkan beertan ku jira ee familkan uu la joogay uu qabanayay hawshaas waa in beerta uu koriyo laakiin taa beddelka ayagan wuxuu ka qaadanayay naftooda ama wuxuu ka nuugayay dhiigooda markaas ka bacdi Rin gabadha Shaymi waxay Rin u sheegaysaa in dhimashada iyada mas'uul ay ka tahay iyada ooyeysa Rinna wuu ku qeylanayaa wuxuuna leeyahay adiga waxaas mas'uul kama tihid waxaad u ooyeysaa markaas ka bacdina waxa arkana Yuki oo bartaas taagan laakiin sheekadu dhanba hal mar isbedelaysa waxaan ogaanaynaa gabadha Shaymi ahayd inuu markaas isaga jinkii ku soo kacayo iyadoo lugaheeda ay ka soo baxaya jinkii Rinna waxa lagu tuurayaa meel u dhow Yuki waxaana arkaynaa in jinkii uu xirtay gabadhii Rinna wuxuu rabaa inuu xanaaqayso waxaan ama sheekadu dhan uu ku daboolo laakiin meesha waxa jooga Yuki oo ah nin xasuuloon ama wax kasta maskax ku xalaya Rinna wuxuu la soo baxay seeftiisa ama seefta ku soo aragnay xalqadii kubad magaceedu waa Kurikara waana seef awoodda Rin xakamaysa taasoo awood saa'idaysa laakiin marka qaar saaxiibiya Rin awoodiisa xadka ka baxda haddana Rin wuxuu rabaa inuu si taxaddar leh u dilo baarka laakiin wuxuu ogaanayaa bahalka inuu yahay bahal caqli badan oo dhan kasta uu ka dili karin una la jaan qaaday gabadha dhiigeeda markaas ka bacdi waxaan aragnaa Yuki oo la soo baxay iskooladihiisii wuxuuna rabaa inuu bahalkan uu ka takhaluso laakiin saaxiibiya bahalkan ma aha bahal si fudud ugu dila kilo waxaana kaliya bahalkan xakameyn kara waa gabadha ama Shaymi laakiin saaxiiba dhacdada ani xataa aan la yaabay idinkan la yaabaysaan waxay tahay Yuki wuxuu ridiyay xabadii Rin aad u arkay xabada inay gabadha ay ku dhacday taana waa dhacdada ani xataa maskaxdayda ay qaadan weeday markaas Rin wuxuu ka faa'iideysanay janiska soo bahalka ayuu dhacda ka kala jarayaa laakiin waxa aad loola siyaabaya gabadhii Rin Shaymi ahayd in caafimaad qabto saxba ku dhaceen lugaheedana ay caafimaad qabaan markaas ayadan aad ay u farxaysaa waxaana imaanaysa hooyada waxay aad ugu farxaysaa gabadheeda in aragto oo shaqo soconaysa oo caafimaad qabta halkan wax ka bilaabanaysa jacayl ama jacayl family saaxiibaha hadda halkan la soo gaarteen aad ayaa ugu mahadsantiin kaliya waxa rabaa inaan idin sheego saaxiibaha anime-ga in aad u fadhi badan oo season yahay aan bartaan ku joojin doono marka saaxiibayaal bal haddaad anime fiican aad heysaan oo si fudud ku dhameyn karno barta comment ku soo qora insha Allah anime-gaas aan bilaabi doonaa